عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ku hadlaya magacayga oo ah Fadxiye Saleeman Xaaji iyo magaca ururka aan ka ahay gudoomiyaha ee Tulka Foundation. Waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo inaanu ayidsanahay baaqa ka soo yeeray salaadiinta iyo maxalada siyaasiyiinta beelaha reer Nuur 18 bishii labaad ee ka soo baxay magaalada Boorama. anagoo ku ayidsan baaqa ay ka soo saareen hadalkii suldaanku ka dhaxiyay fagaara aan looga baahnayn runtii aanan maxay hayday ku raacsanahay ama ku taabacsanahay hadalka ka soo yeeray salaadiintayada iyo siyaasiyiintayada taasoo ku taageeranana musharaxayaga mudane Maxamed Cali Aw Cabdi. waxaanu leenahay haddaan nahay beelaha bariga Awdal waxaanu raacsanahay ama qurba joogta bariga Awdal haddii aanu nahay waxaanu taabacsanahay baaqa ka soo baxay salaadiintayada iyo siyaasiyiintayada oo ku ayidsanahay aan ku barbartaaganahay barbarkay ka baxdaa waa bakaylan qadeen waa nagu ag taaganahay adeerayaal baaqa idiga soo baxay ee soo jeediseen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan ka hadlayaa Cismaan Sheekh Umar Sheekh Muuse. waxaan taageersanahay baaqii waxgaradka reer Nuur Boorama ka soo jeediyay bisha labaad 18keedii ay ku baaqayeen inuu reer Nuur musharax leeyahay ay ku baaqayeen kaasaan taageersanahay. Maxamed Cali Aw Cabdi waa musharax reer Nuur, waa musharax makaahil, waa musharax gadabuursi, waa musharax Somaliland. kaasaan taageersanahay. aad iyo aad baan idin salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. annagu odayaashayada iyo guurtidayada iyo magaranaysaa taliyahayaga waan ku raacsanahay, waan garab taaganahay, hoo iyo hiiba waan la garab joognaa. waxaasna waxaan yeeli karaana maaha, waxaasna waxaan u adkaysan karaana maaha. odayaashayada xumaan iyo wanaag waanu hayna waanu kula garab joognaa, waananu ku raacsanahay odayaashayada iyo siyaasigayagaba inay waxay sameeyaan aanu daba fadhiisano. waanu jecelnahay, waana diidnay taas suldaanku wada, waan diidnay, ma yeelano. siday doonto waa u dhacday, ma yeelano. waan raacsanahay odayaashayada, waanu ka dambaynaa odayaashayada, hoo iyo hiibo odayaashayada waan la garab taaganahay haddii ilaahay idhaaho. annagu waxaan ku raacsanahay calaa kulli xaal waxay odayaashayadu soo jeediyaan baanu ku raacsanahay. waana diidna waxay odayaashu diideen, waxay odayaashayadu jecel yihiinna waanu jecelnahay. sidaasaanu annagu gacmaha isku haysanaa. waana diidnay suldaanku tuu waday, waanu diidnay odayaashu ayaanu ku raacsanahay, waanuna garab taaganahay. ilaahay garabkooga ha gale. waa taasaanu odayaasha iyo oqaashayada iyo magaranaysaa siyaasigaba taasaanu ku raacsanahay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadlaya waa Faysal Cabdullaahi Xaaji Cabdi, Faysal Abrone. waxaan halkan ka cadeynayaa mowqifkayga ku aadan arrimaha ka soo cusboonaaday dhulkeenni hooyo, gaar ahaan hawsha ay ku gabraarteen odayaasha ama caaqiliinta beelaha reer Nuur. arrintaasi ayaan aad iyo aad u taageersanahay. waxaa kaloo aan taageersanahay wax waliba oo horumarka iyo horu socodka bulshaweynta reer Nuur. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كين محمود عبد الله عرب waxaan taageersanahay uqaashayadii iyo salaadiintayadii iyo waxgaradkayagii 18kii bisha ka hadlayay Boorama ka hadlay diidanaa dhawaaqi ka soo yeeray sultaankayagii guud ee Suldaan Saleebaan ayaan ku taageersanahay. waxaan taabacsanahay salaadiintayadaasi ka soo horjeeday ayaan taabacsanahay dhammaantayo. haddaan nahay qurbo joogta aad iyo aad baan u taageersanahay, hoo iyo hiilba iyagaan la ag taaganahay. waxaanunu taageersanahay musharaxyaga Maxamed Cali oon ku dabal fayshanahay dhammaantayo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamuud Sheekh Muse, jooga wadanka Kuwait. Waxaan aad u taageersanahay go'aankii geesinimada lahaa ee uqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo qurbo-joogga reer Nuur ay ku qaadaceen arrinkii kasoo yeedhay suldaanka. aad iyo aad baan u taageersanahay uqaasha iyo salaadiintaasi. السلام عليكم تركي دمان والسلامية ومصطفى إسماعيل فرح وكما عليه تشوفوا أو تشوفوا ودك سويسرلاند waxaan maanta taariikhdan taageero uga muujinayaa oon taageerayaa tolkay oqaashayada indheergaradka aqoon-yahanka caaqiliinta iyo salaadiinta ka hadlay magaalada Boorama ee Turweynaha reer Nuur. arrinka ay ka hadleen boqolkiiba boqol haddaanu nahay qurbo joogta reer Nuur waanu taageersanahay. qurbo joog iyo qolqol joog baanu taageersanahay. waxaanu ku ayidsanahay hadalka ay ka soo saareen Suldaan Saleeman hadalkii uu yidhi go-aanka ay ka qaateen iyo hadalka ay ka soo saareen iyo halkay iska taageen baanu ku garab taaganahay. musharax iyaga habeen iyo maalin baanu u shaqaynaynaa. halka uu nagu hogaamiyena waanu ku daba joogsanaynaa haddaan nahay qurbo joogta reer Nuur. aad iyo aad baan idin salaamayaan madaxyaal dhammaantiinba waad mahadsantihiin. waxa weeye odayaasha salaadiinteen iyo odayaasheen iyo dheergadkeen waxay dhahdeen waynu ku raacsanahay dhammaanna waan salaamayaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay waa Basma Daahir Muuse ku nool Imaaraadka Carabta gaar ahaan Dubai. waxaan aad u taageersanahay baaqi ka soo yeelay odayaasha dhaqanka ee beesha reer Nuurweyne. taariikhdu markay ahayd 18 bishii 2 2017 oo ku asteysan sanadkan in hadda ku jirno. waxaan leeyahay baaqaasi ayaan taageersanahay waana baaq aanu ka sugaynay guud ahaanba odayaasha dhaqanka beelaha reer Nuurweyne. waxaan leeyahay waa baaq aan ku faraxsanahay oo aan sugaynay. waxaan rajeynayaa guud ahaanba reer Nuurweyne inuu baaqaasi ayidsan yahay oo uu taageersan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan anigoo halkan magacayga ku hadlaya Cabdiwahaab Faarax Kaamil waxaan taageero ku darsanayaa odayaasha dhaqanka muxuu ahaa oon taageersanahay qaabkay u hadleen iyo siday wax u arkeen iyo sida ay wax u yiraahdeenba ayaan ku taageeraya. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. halkan waxaa ka hadlaya maxamed cilmi dheere. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan odayaasha reer Nuur ee Somaliland jooga nabadoonnada caaqilada. waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan doonayaa halkan inaan inaga hambaliyeeyo arrintii dhacday shir jaraa'idkaad ka qabateen maalintii bisha 18 February ee ku beegnayd arrintii uu Suldaan Saleeman uu ka hadlay xisbiga kulmiye uu ka hadlay uu ka sheegay inuu Muuse Biixi taageersan yahay. hadalladii aad ka jeediseen iyo cambaareyntii aad halkaa ka soo sheegteen aad iyo aad baan inagu taageersannahay. annaguna arrintaa waan inagu taageernay. insha allah waxaan ilaahay ka baryanaa inaynu hore u soconno. waxaan u baahannahay reer Nuurow inaynu garab taagno oon xagga dambe iyo bidix iyo midigtaba ka joogsano musharaxeena Maxamed Cali Cabdi inaynu ka wada shaqeyno sidii u soo bixi lahaa. hadday dhaqaale noqoto hadday dad noqoto oo hadhow foodka keenaya waxaan doonaynaa inaan gacmaha isqabsano. aad iyo aad baan horta inii soo hambaleynayaa sida fiicanada shir jaraa'idka uga hadasheen. hadalkii aad tirahdeen waa tirahdeen wax dambe lagu noqon maayo. aad iyo aad baan inigu mahad celinaynaa waanad mahadsantihiin. annagu haddaan qurbaha joognana arrintaasi waanu inagu garab gelanaa waananu inila qabnaa wixii dhacay. marka waxa weeyaan insha allah biidni illaahi alkariim sidaasaan inigaga tegayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا فرحان سعيد خليف وحن هلكن تاجر هيل إيه خوبة له لبربر تاجرنا هاي عقاش يدا مضحض يدا دليرد يدا أقون يهندا سياسيين تا بيلوين ترنور ما أنت ورباهين تكلها تلي بورما وحن كسور جدنا وأنان كس إيه كم تونا كيل دونين كنا أيد دونين baaqa madasha uu ka hadlay suldaanku
suldaan saleebaan waxaanu leenahay taasina waa mid isaga u gaara isaga ku keliya wadadiisa aan ma haysano iskuna jid ma ihin wadadu hadday kala baydhana lakum diinukum waliya diin baa kitaabka ku taala wax la isku daalayo ma aha waxaan leenahay beesheena qoraha u socoto halka aan higsanayno iyo jidka aan marayno iyo nolosheena iyo aayaha ubadkeena inaan ka tashano magaceenu inuu jiro oo midnimadeenu jirto ayaan doonaynaa sidaas inoo ballana barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen